bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa shabakada wararka ee qiima t v oo idiin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada xilligan wararkeena aad ku daawan doontaan inaan idinkugu soo gudbin doono saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo khilaafka ugu weyn abid uu ka dhex qarxay kadib markii madaxweynaha Jubbaland uu go'aan ku gaaray in doorashada lagu qabto magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo war kulul oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo ra'iisul wasaare Rooble oo ku booday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe isla markaana garabkiisa ka baxay qodobada kale ee wararkeena waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo si weyn ula saftay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa lafta gareen iyo Madoobe oo isla xiranaya markaan xilli ay ku dhawaaqayaan in doorashada dalka aan la gudagali karin iyadoo ay dhiman yihiin xildhibaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland isla markaana aysan qaadanin shahaadada aysan dhici doonin wax dhaarin ah amaba wax doorasho ku saabsan guddoonka golaha shacabka iyo midka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya hadaba go'aankan muxuu uga dhigan yahay villa Soomaaliya oo dagaal culus kula jirtay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ra'iisul wasaare Rooble muxuu markaasi talaabaha uu qaadi doonaa maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Rooble uu xaalku ku xun yahay xogo iyo macluumaadyo ayaan idinkaga soo gudbin doonaa haddii eebaweyne uu qadaro qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed laga soo doortay oo qaab la yaab leh lacag uga dhacay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre haddana kamid ah murashax madaxweyne Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa lacago boqolaal kun oo dollar ah oo xildhibaanadaasi qaab la yaab leh ay uga dhaceen ra'iisul wasaare hore Kheyre iyo xaalka Kheyre oo aad u xun xilli hore lacago looga dhacay dalka Kenya haddaba miyuu Xasan Cali Kheyre isaga hari doonaa tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya xogo iyo waliba sidoo kale macluumaadyo ayaan markaasi idinkaga soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaare Rooble oo markaasi si joogto ah ula shiraya guddiga ee doorashooyinka heer federaal isagoo walwal badan ka qaba in guddoonka guddiga doorashooyinka markaasi la laaluusho isla markaana ay noqdaan kuwa ka baxa garabkiisa waxaan idiin soo gudbin doonaa xog ku saabsan ra'iisul wasaare Rooble oo habeen kasta kormeer ku sameeyo guddiga doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada ku saabsan in ay markaasi xiriiro kala duwan ee la sameynayaan xubno ka tirsan villa Soomaaliya hadaba waxaan idiin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha oo bilaabay in uu markaasi korjoogto ku sameeyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan guddiga doorashooyinka iyo xitaa sidoo kale telefoonadooda gacanta ah ee gaarka ah hadaba walaaca haysta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu yahay xaalkiisa oo aan wanaagsanayn ayaan sidoo kale wararkeena idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si uu kulan ula qaato ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu la wadaago warbixin ku saabsan waxyaabihii uu kala soo kulmay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaynu eegi doonaa Qoorqoor oo arrin markaasi lama filaan ku noqotay kala soo kulmay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena qiima TV daawadayaal haddii aad inagu cusub tihiin isla markaana ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelkan ee qiima TV waxaan idinka dalbanaynaa in aad subscribe inoo saartaan channelka oo aad gambaleelka furataan si ay idinkugu soo dhacaan muuqaalada degdega ah iyo warbixinada joogtada ah ee alaab halkan aynu ku soo gudbino muuqaalkana like inoo saara si dad badan oo xaaladda wadanka u baahan inay la socdaan uu u gaaro si sheergareeya oo ku sii baahiya muuqaalkan baraheena bulshada asxaabta markaasi idinkugu jirto idinkoo gaarsiinaya qaybta hoosena aragtideena ayaad inoogu cabiri kartaan waxa ay idinla tahay xaaladda wadanka iyo sidoo kale qodobada kale ee aynu markaasi ku soo qaadanay wararkeena aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibayaal haatanna haddii aynu ku bilowno madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa warar la helayo waxa ay sheegayaan in uu khilaaf markaasi ba'an soo kala dhex galay xogta aynu helayno ayaa tilmaamaysa in Axmed Madoobe uu markaasi fahmi waayay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble isla markaana ay kala boodeen ra'iisul wasaaraha ayaana ku booday sida wararku ay sheegayaan Axmed Madoobe villa Soomaaliya ayaa go'aankan aad u soo dhaweysay isla markaana ku farxday hadaba Axmed Madoobe afka ayuu furtay waxa uu go'aan ka soo saaray kuraasta gobolka Gedo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ee martiqaad waxa uu ugu sameeyay xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Kismaayo maadaama deegaan doorashada labaad weli wax doorashaha aysan ka dhicin
madaxweynaha Jubbaland ayaa tilmaamay in kuraasta dhiman ee gobolka Gedo iyaguna dhowaan la soo dooran doono isla markaana matalaad la'aan ay noqon karin dadka reer Jubbaland ee gobolkaasi Gedo ku nool. waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha in ayna macquul ahayn doonista qaar ka mid ah beesha caalamka ee raba in madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya ay kala qaybsadaan xildhibaanada ka soo baxaya gobolka isla markaana dadka matalaada iska leh ee deegaankaas ka soo jeeda ay iyagu soo dooran doonaan dadka ku matalaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in haddii kuraasta la kala qaybsanayo ay dadkii ku matalayay gobolkaas siyaasadda Jubbaland ay joogaan isla markaana ay iyagu ay idfadhi u yihiin xalka gaarista arrintaas. madaxweynaha ayaa sheegay in xildhibaanada federaalka ah ee ka soo baxay Jubbaland ay saaran tahay mas'uuliyad guud oo ah in dalka la samata bixiyo iyada oo la kaashanayo xildhibaanada kale ee ka soo baxay qaybaha kale ee markaasi ee dalka Soomaaliya.